waxaa ka dhashay abaar baahsan oo sanadkan dalka Soomaaliya dhan camiimtay. Waayadii hore gobollo gooni iyo meel gooni ay ku dhici jirtay, inta kale aa gurmi jirtay. Maanta way camiimtay. abaar aad u daranaa jirto oo aad iyo aad u xanuun badan. xilli xasaasi oo waddanka doorasho iyo buuqna waa kuwa lagu jiraa. waa laba duruufood oo aad u qallafsan. annaga Hormuud Salaam Foundation ahaan, maadaama aan nahay shirkadda waddanka ugu weyn, macluumaadka iyo informationkana ugu horheli og, ganacsiyada Soomaaliyeed intaan la soo imaanin, anaga waxaan bilownay gurmad, waxaan bilownay biyo dhaamin. dhowrka maalmood soo dhaafi socday dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka ay ka howlgasho shirkadda Hormuud Telecom. waxaana shaqadaas wado oo qabanaya dhammaan shaqaalaweynaha Hormuud Telecom ee gobollada iyo degmooyinka dalka, ayagoo kaashanaya dadka deegaanadooda. waxayna u sameynayaan biyo dhaamin dadka iyo dunyada intaba. insha allahu tacaala waxaan ugu baaqayaa ganacsiyada Soomaaliyeed inaan isugu nimaadno kulan degdeg ah si arrintan tala mug leh looga qaato. taas waan ku baaqaynaa. shaqada gurmadka ahna annaga oo biyo dhaamintaana waa wadnay, amarkaasna dhammaan waa siinay shaqaalaweynaha oo shirkadda Hormuud Telecom. ayagaana safka hore gurmadka ugu jiro, oo annaga xoogga aan leenahay Hormuud Salaam Foundation ahaan waa shaqaalaweynaha Hormuud Telecom iyo bangiga Salaama, maadaama ayaga ay gobol kasta iyo degmo kasta tuulo kasta joogaan. biyo dhaamintaas waa socotaa. waxaan u baaqaynaa ganacsiyada Soomaaliyeed in la isugu yimaado shir degdeg ah